Assalaamu calaykum daawade soo dhawow marka aad maqasho xayawaan halis ah waxaa maskaxdaada durbaba ku soo dhacaya in uu yahay wax laga cabsado laga fogaado oo aan la isku halayn karin magacaygu waa Cabdixakiim Colaad muuqaalkanna waxaan idinkugu soo gudbinayaa dhacdooyin la yaab leh oo ku saabsan carruur ay yaraantoodii soo koriyeen qaar ka mid ah xayawaanada ugu halista badan dunida ku soo dhawow muuqaalka oo dhammaystiran gabadha sida ayda u qaylisa Oksana Malaya waa gabadh u dhalatay dalka Ukraine qoyskeeda ayaa ahaa kuwa qamar cab ah markay yareedna ma aysan siin jirin wax ahmiyad gaar ah maalin maalmaha ka mid ah ayaa Oksana ay guriga ka baxday iyadoo aad u da'yar waxayna u gacan gashay koox ay ah oo ay gurigooda kula noolayd aydaasi Oksana waxay baratay nolosha ayda waxay la qabsatay ku noolaanshiyaha gurigooda waxay u qaylisaa sidooda iyadoo afarta ku socota waxay cuntaa hilibka cayriinka ee xayawaanada nolosha ayda ay ku faraxsan tahayna halkaasi ayay ka wadataa maalin ayaa mid ka mid ah dadka deegaanka soo sheegay inuu arkay gabar ay ayda korsadeen meeshii ayaa loogu tagay dabadeedna waa laga soo saaray inanta yar markii wax la siiyo waxay u dhaqantaa sida ayda oo luuq bay la gashaa cuntada ay cunayso dulqaad ma laha dharkana ma jecla oo way iska bixisaa haddii loo xiro ayay tiri mid ka mid a dadkii la soo macaamilay Oksana Malaya waxaa la baray qumani u socodka gacan wax ku cunista iyo la xiriirka bini'aadamka mar haddii cunuga uu luqad baran waayo marka uu shan jirsado way adag tahay bay sheegeen culimada inay bartaan intaa kadib hase ahaatee Oksana ayay u fududaatay barashada luqadda dalkeeda maadaama ay carruurnimadeeda lahayd ku hadalka luqad carruurnimo gabadhii daanyarada Marina Japan ama gabadha daanyarada markii ay yareed ayay koox afduubayaal ah uga tageen meel duur ah iyadoo xirxiran waxaa u suuragalay inay duurka ka badbaado maxaa yeelay waxaa badbaadiyay daanyarada loo yaqaano Capuchin waxay bareen sida loogu noolaado duurka iyo nolosha daanyarada Marina markii ay xoogaha la noolayd waxay baratay sida ay gacmaha ugu qabsato shimbiraha iyo bakaylayaasha ay quutaan daanyaradan noloshooda waxay baratay sida loogu noolaado isla mar ahaantaana waxay baratay luqadda ay ku wada xiriiraan maadaama ay aad u yareed oo aysan lahayn awood ay ugu hadasho luqad bini'aadam 5 sano kadib waxaa duurka ka helay koox ugaarsato ah waxayna ka iibiyeen kuwa daroogada ka ganacsada maadaama ay inanta yar u dhaqanto sida daanyarada oo ay bini'aadamka u aragto sida iyagu u arkaan xoogaha kadib way ka baxsatay meeshii kuwii laga iibiyey wadooyinka ayay indhowra ku noolayd dabadeed waxaa adoonsaday koox maafiya ah taasoo u sahashay xiriirada ay la samaysay kadib in ay nolosheeda bini'aadamka dib ugu soo yara laabato Marina way guursatay qoys ayayna leedahay hadda markii ay heerka caqli buuxa iyo bini'aadam wax fahma ay gaartay ayay qortay buug ay uga sheekeynayso nolosheedii hore balse daabacaadyo badan ayaa diiday inay sheekadeeda daabacaan maadaama ay rumaysan waayeen waxa ay sheegayso haddii aad daawado weli muuqaalka daawanayso codkaygana uu ku soo gaarayo mahadsanid fadlan ha hilmaamin inaad subscribe tiraahdo gambalaalkana aad furato si lagu ogeysiiyo muuqaalada noocan oo kale ah ee aanu soo gelino inaguna dhiirigelin ayay inoo tahay wiilkii shabeelka wiilkan waxaa loo yaqaanaa wiilkii shabeelka ama ina shabeel 2 sano ayuu jiray markii ay koox shabeelle ah ka haysteen sanadii 1912 3 sano kadib ayaa nin ugaarsada waxa uu dilay shabeel dhadig ah waxa uu arkay 2 shabeel oo yaryar iyo wiilkan ibnu aadamka ah wiilka ayaa laga soo waday goobta waxaana loo geeyay qoyskiisa oo degnaa tuulo yar oo ku taala Hindiya markii la soo qabanayay wuu foorarsanaa waxa uu ahaa mid afarta ugu ordaya sida ugu xawaaraha sareeya ee qof caadi ah uu labada lugood ugu ordi karo jilbihiisana waxaa ku dahaarnaa xuub adag cidiyihiisa kor ayay u taagnaayeen gacmo iyo lugo adag iyo ilka af leh ayuu lahaa isagoo la dagaalamaya ciddii u soo dhawaata ma uusan hadlaynin marka laga reebo isxoqidda iyo qaylada bararsan ee shabeellada uu ka dhaxlay markii dambena wuxuu bartay sida loo hadlo iyo sida quman ee loo socdo dabadeed waxa uu bilaabay inuu tartiib la qabsado noloshiisa dhabta ah nasiib xumase waa uu indho beelay taasi waxaa la sheegay inay tahay dhaxal awowaad oo aysan sabab u ahayn noloshiisii hawdka wiilkii goronyada Sidi Maxamed oo loo yaqaan wiilkii goronyada sheekadiisa ayaa ah mid kale oo la yaab leh markii uu 5 ilaa 6 sano jiray waxa uu ka lumay qoyskiisa isagoo dhex galay buul goronyo oo hawdka ku yaala halkaasoo uu goronyadii kula saaxiibay way koriyeen waxayna bareen sida si dhaqso leh ugu ordo maadaama goronyada ay tahay xayawaan aad u dheeraysa waxa uu hooy ka dhigan jiray baalasha goronyada intaa kadib markii uu 12 sano jirsaday ayay wiilkan heleen ugaarsatada goronyada ee hawdka waxayna la goobeen waalidkiisa dadaalkaas kadibna ay soo heleen ugu dambeyn Sidi Maxamed ayaa guursaday carruur ayuuna leeyahay nolosha bini'aadamkana si fudud ayuu la qabsaday inkastoo xiriiriisii carruurnimada uu cuni jiray cawska haatan waa uu xiiseeyaa oo iskama dayn karo inkastoo uu miyirkiisu yahay mid caadi ah haddana weli waxaa ku yara dambeeya dhaqamadii uu ku soo koray iyo la noolaanshiyihii goronyada waad ku maadsan tahay daawashadaada haddii aad is leedahay muuqaalkan waxa uu anfacayaa asxaabtaada la wadaag si ay iyaguna kula daawadaan